السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش إذا قيمة هي قدرتنا نجمدنا كسر دوادا حرنتا تلفزيون كعالمي جاه الصومالي channel وكل هي مجالة نيروبي داوديال وحن شعلا إن هالكان إني كسر قد بنو برامج جارة وأنو ورئيس كومن كلية لندن هدي الله أود له رالي كان قضوه وسير كعدالة دا يأرمها دينتا دولة بنتلان مولانا عبد الخليف شيخ حسن أجايا وزير أجايا كسر تلفزيون كصومالي channel. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت codkayga maqlayso Soomaalida meel ka soo joogan dalka dibadiisa dalka gudihiisaba magaca Ilaahay baan ku salaamaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh alaykum salaam warahmatullaahi waa tahay wasiir aad ayaad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga ah ee aad nasiisay wasiir waxaad nooga warantaa dalkii Puntland iyo dawladii Puntland aad ka timid warbixin kooban naga sii dawladda Puntland waa fiican tahay oo waqtigan xaadirka waa fiican tahay xagga nabadgelyada iyo xagga maamulka iyo dhan kasta way ka fiican tahay xoogaa abaar yar baa jira taasuna dalka oo dhan bay la qabtaa oo wax gooni ah iyada ku ah ma aha hase ahaatee waa fiican tahay haday nabadgelyada tahay iyo haday wax kasta tahayba dalka hadda waxaan is leenahay meesha ugu ballaaran oo Soomaaliya markii laga bilaabo gaalkacayo ilaa waxaan is leeyahay caluula ilaa 1300 kilomitir weeye badana garacad ilaa laasqori waa ilaa 1200 kilomitir baaxadda inta leeg waxa weeye waa nabad habeenkina waad soconaysaa wax dhibaato oo ka jirana haba yaraatay ma jiraan habeen iyo maalin baabuurtu waa soconaysaa wax dhibaatana kama jiraan aad iyo aad bayna u fiican tahay waa gartay wasiir aad iyo aad u mahadsan tahay waxaad soo qaaday dhanka abaaraha maxaad nooga sheegi kartaa Puntland ma u qabatay wax gudiya ama gudi abaareed ha ahaatee ama gargaar ay dadka gaarsiinayaan abaaruhu saameeyeen barnaamijkaas waa laga fariistay oo galaha wasaaraddu waa uu ka fariistay gudi baana loo saaray oo wasiiraa iyo number badan oo yacni technography oo iyagana la shaqeynaya markii uu horeysana already hadda waxaa loo bilaabay dhankaas udugu bariga dambe oo meel ay ka jireen biyo dhaamis iyo dhibaatadii ka jidhay gudi baa hadda ku maqan soonayowga kalena waa lagu maqan yahay marka gudi udugu heer wasiiradeeda ayaa ka shaqeynaya marka waxaana la hormariyay ilaa $200,000 baa markii hore la rays gareeyo dawladda ay horta budgetka ku shubtay meeshii miisaaniyadda ahayd dadka kale Soomaalida aana waxa loogu yeerayo dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibadiisa oo reer Puntland inay waxay dadkooda u qaban karaan ay u qabtaan waxaanu meel walba ka sheegnay haddii Soomaalidu ay 3 goor wax cunto 2 goor inay horto mar ay ka boodaan goorta shacabkooda ay ugu deeqaan walaalahooda oo abaaraysan waa gartay wasiir waa maasantahay haddii aan su'aal yar ku weydiiyo waxaan la soconaa yaan dhaweyd inay qaramada midoobay lacag gaaraysa 4.5 milyan oo dollar la gaarsiiyay dawladda Puntland lacagahaas ma dawladii iyo waxay ku baxday wasiiradii markaas meesha joogay mise dadka abaaruhu saameeyeen ayaa wax laga gaarsiiyay 4 milyanka iyo barkaas lacagta Soomaalida oo dhan la siiyay ayay ahayd portionka ka soo gaarayay Puntland wali aan soo gaarina 500,000 ayay ahayd oo 500,000 dollar oo Puntland loogu talagalay laakiin wali udu lacagtaas ma soo gaarin laakiin waa lagu dhawaaqay waa gartay wasiir waxaad nooga warantaa Puntland hadaad tihiin maadaama aad nagala joogtid oo tahay mas'uul Puntland ka tirsan dhaqaalaha Puntland xageen ka soo galaa dhaqaalaha Puntland budgetkii hadda waa la gudbiyay oo miisaaniyadda galaha wasaaradda markii hore la keenay markii dambena baarlamaanka loo gudbiyay waana la approve gareeyay annaga budgetka iyagu 92% waxa weeye waa domestic oo dalka ayuu ka soo galaa oo wax dalka gudihiisa ka soo gala way wax dalka gudihiisa ka soo gala way cashuurta naga soo gashay way waa gartay haddii aan dhanka kale su'aalka weydiiyo idinka Puntland ahaan imisa gobol baa tihiin maxaa samaamushaan in hoos yimaada ilaa 7 gobol baan aan nahay ilaa degmooyinkuna waxa weeye ilaa 38 degmo oo idinka in hoos yimaada waan gartay waxaad nooga warbixisaa Puntland ahaan maxaad higsanaysaan idinku haddaad tihiin xukuumadii Puntland أنا مركو هره دي إن أنا إسكو فلان شاهن هذا بميل في عم بانو مرينا ومركزتا حالة أنكو سوغنا حالة كفي عن أنو جارسينو ومجتمع أنو شغاء وأبوهرو ودلن يردو جامعة بدن باجيرة جامعة هي كسو بحيان اسكولة كسو بحيان أدب حاجة تعليم تلوجو مسؤول شنو هي مركا إنه يهرو مركز ماركتا هدنا علمه ميلي كشقيان وماركتا هرمر لوصمي أيان ونربنا حاجة بدأ وحوي كلوميسي بعدو برنامج لوي وحبا السعودة وحا السعودة
xagga xoolaha in naaxintooda barnaamijkooda wax noocaasa mustaqbalka in la sameeyo warshado hilib oo haragana gooni loo sameeyo warshada loo sameeyo lafaha gooni war loogu sameeyo hilibkana gooni loogu sameeyo adugu hadii dalku development laga helo oo dalku hadii maalgelin la helo dadka Soomaalida ah oo iyagana jooga ama reer Puntland oo dibadaha jooga ay lacagtooda wax ka soo gashadaan hal portion ay ka soo gashadaan aday horumar fiican baa la sameeyaa way dawladdaanu dawlad shuuciye ma aha waxa weey waa dawlad cashuur qaad cashuurtaasna horumarinta lagu sameeyaa hadba hadda baaxadda dalka ku jira baa dhaqaalaha goorta wax ka soo baxay oo noqonaya marka midda kalena waxa weeye Soomaaliya oo dhan baan anagu higsanaynaa halkan waxa la qabtay nadwo sanadkii hore oo culimada oo dhan isugu yeeray oo adduunka oo dhan ka yimi haddana waxa la qabtay haweenka aan boordir kala ahayn oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba haddana waxa la qabtay isboortiga 23 sanadood aan yaani maqnaa ayaa waxa lagu qabtay garoowe lagu qabtay marka haddana Soomaalidana diyaar baan u nahay markasta oo Soomaali raadinteedii waayo meeshaanu waa xuduntii ummadda Soomaaliyeed leegada meesha laga isaasay weeye dalku meeshu ka soo farcamay weeye saad ogtihiin Puntland ama Soomaali geeska Afrika wuxuu la facyahay nimankaas misaarida ah ayuu la facyahay markoo waxaad aragtaan in la yiraahdo gudniinka fircooniga dal kaljar loo soo dhoofiyay ma saaban karo laakiin waa dal meesha wax ka dhashay weeye marka waa isku da weeye Masar iyo yaani Puntland ama Soomaalida geeska Afrika